وكما سياسي حناقصن سياسيين حناقصن مستقبلك صوماليا دنك ملها وها أدران دنتوda shakhsiga ya udaran waxay ka hadlaan negative wax xun ay ka hadlaan wax dadka qalbi jabinaya ka hadlaan waxay ka hadlaan dalkan waa ma soo noqonayo waxay ka hadlaan beesha caalamka noo timaado oo hana dhexdhexaadiso waxay ka hadlaan waa laga adkaaday ma kan baa siyaasiga xanaaqsan ee qalbiga ka jabiyay shacab dawlad waqtigeeda dhamaaday madaxweyne waqtigiisa dhamaaday oo ay xabad kaliya uga soo hartay mise shariifkan hanjabaya thumma wallahi hadaysan joojin waa bixinayna yaa diidan in hore loo wado dawladnimada Soomaaliya oo idaacadaha hortaagan facebookyada hortaagan oo kulligood shaqada rabaana waa waxay yaqaaneen oo ay soo dhadhamiyeen oo qayb wax ka yihiin in lagu hadlahayo dawladda siyaasiga mucaaradka nabadda iyo dagaalka keebuu jecel yahay qofka doo mucaarad yahay dadku wuxuu ugu nacab yahay ninka nabadda sheegay haddaba maxay ku heestaan musharaxiinta mucaaradka madaxweyne Farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka murashaxiinta la leeyahay ee caawa meeshan fadhiya ee sharafta badan waxay isku haystaan waa kursiga waa madaxweynenimada la isku haystaa madaxweyne Farmaajo muxuu ku qabsaday dawladnimada mise doorasho wax ka soo dhaca dawlad baa leeyihiin dawlad yaa doorateen annagu maxoog baan ku nimid annagu rabitaankiina ku nimid doorashaan ku nimid xaq baa in ciidamada qaranka Soomaaliya la sharaf dilo qofkii wax tabanaya ma aha cadaaladda iyo sharciga gacantiisa ku qaata ma aha inuu hantida shacabka Soomaaliyeed burburiyo ma aha inuu nabadgeliyo xumo iyo nidaam xumo u horseeda ma aha in cadawga aan la dagaalayno oo argagixisada ah inuu gacan siiyo ma aha ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed dad xun kulli inay ka wada dhigaan oo ay abuuraan xasilooni darro ay garab u noqdaan argagixisada goormee ayuu soo bilaabay Sheekh Shariif qawaawilada barnaamijyada rabshadaha wata Soomaaliya hadday diyaar u tahay inaan muqaawamayno annaga diyaar Allahu akbar Sheekh Shariif iyo xulafadiisa ma waxay doonayaan mar kale inay soo abuuraan jabhado dagaal galiya dalkan si mar kale uu xukunka dalka kula wareego dagaal inaan cadayno inaan ka tanaasulin mowqifkeeni iyo mabda'eeni iyo xuquuqdii aan u taagnay sharaf oo ahayd in uu suura galo barnaamij oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaato la caqaladeeyay darjirka daxsoon insha Allah tabaaraka wa taala maalinta jimcaha marka dadka Soomaaliyeed meel joogan waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb qaataan